waxaa maalmaha ka mid ah u tagtay dukaan moobilada lagu sameeyo hooyo ubad badan dhashay carruurteedana marxalado kala duwan la soo martay dhibaato la soo martay hooyada carruurtii way ka waaweynaadeen qaar way guursadeen qaar way ka tageen oo waddamo kale u dhoofeen qaar way la joogaan sidaa awgeed hooyadaas waxay tagtay dukaan moobilada lagu sameeyo waxaana ninkii dukaanka sameynayay moobilada sameynayay ku tiri waxaan doonayaa inaad ii eegto moobilkayga inuu xun yahay sababtoo tahay waxaan u malaynayaa inuu moobilkaygu xun yahay carruurtaydii ima soo wacaan ilamana soo xidhiidhaan ninkii moobilada sameynayay wuxuu eegay telefoonkii bayterigu eegay waxaan kuri guduhu u galay meel walba wuu eegay wuxuu arkay moobilkan inaan waxba qabin hooyadii wuxuu ugu jawaabay hooyo moobilkani waxba ma qabo balse ubadkaaga aad dhashay ee aad ka sugaysay inay ku soo wacaan ayaa qalbigooda xumaaday kuwaasaa qalbigooda xumay bal adigu waxaad matashaa hooyo lagu yidhi ubadkaagii qalbigoodu waa xumaaday sidee bay yeelid marxaladii baad ka leed haddaad imanka hooyo tahay iyo haddaad waalidkii hooyadaas carruurtii hooyadaas u dhashay tahay hooyadaas halkii murugay kala tagtay fariintaan halkan ugu gudbinaya waxa weeye qofka maanta hooyadii iyo aabbihii soo gaadhay maanta ay dul joogaan dhallinyaraa waktigii ay hooyo iyo aabba la soo maray garanayaan waxaan leeyahay laga faa'iidaysto aad baan idiin salaamaya dhammaantiinba maalin wanaagsan khayr iyo bashbash iyo barwaaqan idiin rajeynaya